adigoo tartankii sooyin ku guulaystay oo weliba koox weyn ka qaaday kooxo waaweynna soo dhaafay maxaa sababi waayey inaad ka soo muuqan weydo tartanka gobolada labada inan oo kale kulley ummadduba dee kuwa ka warwada qabtaa siyaabaha ay ku tegeen naadiga oo kale shaqo iyo inay uga dhaqaalo badan tahay naadiga wasaaradda horumarinta maaliyadda maxaa keena xamaasadda intaa leeg inaad iidaano macashaqinta kubadda cagta agtooda uga dabaaldegto markaa dabeecad baa adduunyadu imika waxaa isku dhaaftay jiilka da'da yar oo qofku hadduu da' yar yahay oo maskax furan yahay spirit buu leeyahay fircooni buu leeyahay dadaal badan buu leeyahay bay iidan haddii maanta lagu dhahdo kooxda maaliyadda maca salaamey oo kooxaha heerka koowaad ee caasimadda hargeysa ka dhisan kooxdaa ku wiir oo macalin lagaaga dhigo kooxdaad jeclaan lahayd in macalin lagaaga dhigo kulley xaaladdu way ka duwan tahay markaad stage ka taagantahay lugtaadii kuma ciyaarisid oo adigu kuma aargoosanaysid kubaddii lugtaadii kuma difaacasid kubaddii lugtaadii kuma dhalinaysid kulankii aad is odhan kartay kulankaas wuu kugu halis badnaa kulankee u ahaa kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Astaan Sports oo barnaamij gaara uu marti noogu yahay tababaraha kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda Iidaan Axmed Iidaan marka hore ku soo dhawow Astaan Sports bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin ugu horreyn ilaahay baa mahadle waan dhowahay saaxiibkay Biinde aad baa mahadsantiin iidan marka hore aad baan kaaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad nagu soo ajiibtay aqbalaadan ku fidinay iidan barnaamij kooban baan kugu eegi doonaa bal taariikh nololeedkaagii waayahaagii kubadda cagta ee inta tababaraha waad kooxda maaliyadda iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan iidan marka hore warbixin kooban naga sii bal waayahaagii tababarnimo halkaad ka soo bilowday Biinde aad baad mahadsan tahay waa su'aal aad u wanaagsan su'aal waqtigeedii timi waayahaagii tababarnimo kulli waqti badan kuma jirin tababarnimada 2016 bay igu horeysay tababarnimada aan cid tababaro coach assistant baan ku bilaabay teamka wasaaradda horumarinta maaliyadda baan ku bilaabay oo uu iga sareeyay macallinkii koowaad ee markii la aasaasay ama markii la isku daray laba maxaan ku rahdaa kooxood oo laba xaafadood ka kala dhisnaa ruqsadana markii hore ay lahayd kooxda Nuuruddin oo heer ku diiwaan gashanayd marka waqtigii reformation ku dhacay ee loo bedelay magaca wasaaradda horumarinta maaliyadda wax loo dhiibay macallinkii runtii aniga laftarkayga aan qiimo badan u hayo Kaysa Daahir Axmed oo imika wadanka dibadiisa ku nool waqtigaas ay igu horeysay inaan coach assistant noqdo waqti badan runtii aan geliyay sidaan tababare heer koowaad u noqon lahaa isaga laftarkiisuna caawimo fara badan uu siiyay 2016 baa walaal igu horeeyay tababarnimada aan naadi tababaro ama aan jiilka cusub ee kubadda cagta ku jira waqti xaadirkan aan tababaro waa hagaag muddo waxaad joogtaa ilaa 5 sano lagu qiyaasi karo iidaan muddada 5 sano imika aad joogto kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda bal guulaha muhiimka ee la taaban karo aad la odhan karo iidaan uu ka gaaray 1 iyo 2 iyo 3 isbedelka wanaagsan aad ka samaysay ma tilmaami kartaa walaalaad baad mahadsantahay kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa ka qayb gashay intii anigu aan tababaro ku-xigeen ka ahaa hal koob bay markaa ka qayb gashay oo 2017 oo ahaa koobkii gooda qaadasay afartan ku hadhanay markaa koowaad guulo fara badan baan ka gaarnay waayo naadigu isagoo markaas inamada la isku keenay oo cusub yihiin ayaa haddana semi final gaadhin oo taasiba guul bay ahayd curdina way haayeen oo deynamo yar soo koriyay inuu waqtigoogii maraya markii ku xigay 2018 bay ahayd koobkii xidhiirka heer B iyo heer C iyo heer A ba la dhigay 30 kooxood ku jireen ay dawladda hoose qaadasay iyadana alxamdulillaah rabbil caalamiin meel fiican baan ka gaarnay oo marka tababaraan ahaa waxa de nasiibku naga heliyo inuu penalties ku hadhnay 8 oo ay asluubtu nagu reebtay taa laftirkeedana kulli guul baan ka gaarno deewaanu soo saaray fara badan oo nagu horeeyay oo يعني أساسه كهري وسارته هرمت مالية أيام ما يلص خاصة كهري لكن أنا جو إحنا مسنا هنا وقت جا تتسندين كي أما لما كون إستي تمكينا أنو سمايناي كروكع ونكسن لما كون يلا بعتن كي بيسوق قاعدي أو سجالات تمكي قبل ما نجين لما كون يلا بعتن كي قبل كي سيدا وين رنتي أنو وصو شعب حناي أما جيل كي داير كها يعني توبرك ونكسن سيناي إنه سهل إن أنو قبل كي 2020 سونيو عيركتي أنو قادنو 3 سونيو bishii maxaan ku rahdayay 8-12keedii alxamdulillaah rabbil caalamiin kaasa guushii ugu weyneed ee aanu gaarnay ay ahayd oo waliba guusha aanu gaarnay kama dhignayn guul runtii aanu hal iyo eber ama 2 eber aanu ku qaadnay koobkii 5 eber baanu ku qaadnay
finalis 5-0 lagu qaadana aad bay reerto way yar tahay kooxdan ka qaadina koox fac weyn oo kooxihii loogu aasaasay ugu horeeyay asaasiyan kooxda eeda ay ahayd oo qaranku ahaa alxamdulillah walaal guulahan gaarnay yani guushii ugu weyn horta taas ay ahayd inaad koobka ku guuleysato inaan koobka ku guuleysan waa hagaag idan tartanka sooyin dul istaagnaa tartanka sooyin wax guul daraa lamaad kulmin kooxo waaweyn baad ka soo badisay haday ka mid tahay dowladda hoose goodir kooxda duulista oo kale iyo gaashaanaad koobkii ka qaadayba idan waxyaabaha ku sahlay inaad koobka guul dara la'aan aad kala kulanto maxaa ka mid ah say dadka kalena 10 ay ugu qaadataan oo su'aal wanaagsan walaal runtii kulley adduunyada imka waxa isku dhaaftay jiilka da'da yar oo qofka hadduu da' yar yahay oo maskax furan yahay spirit buu leeyahay firfircooni buu leeyahay dadaal badan buu leeyahay sababihii noo sahlay waxay ahayd kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda aniga macallin ku-xigeenkaba waxa noo sahlay iyo maamulka kooxdaba jiil da' yar baanu ku bilownay oo aanu sanad iyo dheeraad tababar aanu siinanay jiilkii da' yaraa waxay keeneen inay isla qabsadaan isla qabsigii baa keenay in koox walba ka hor timaada ay yacnihii ka badiyaan ama ay dhinaceega dhulka dhigaan marka waxyaalaha ugu waaweyn ee difference-ka keenay inaan naadiyada kale ku karbaashna waxaa jiil da' yar bay ahaayeen ka firfircoon nimanka naga soo horjeedina la ciyaarayo dhowr koob soo ciyaaray marka waxaan aaminsanahay in imika laftarkeeda falsafadeedii kale ama anagu nidaamkii aan soo kordhinay ay naadiyada badankoodu qaateen oo jiilkii yaryaraa ee heerka B-da ama C-da ay soo dalacsiiyeen taasaana keenaysa inaad horumar badan aad samayso koobka inaanu hanano oo aanu si sharaf iyo karaamo loo hamano oo ay noo dhib yaraato ka macallimiin ahaan inaanu koobka guulo waaweyn ka soo hoyno waxay ahayd inama da'yar oo talent ah da'yaraantu ma aha inuu qofku da'yar yahay uun laakiin qof da'yar oo xirfadii kubadeed oo aqooneed intaba leh ayaanu maxaan ku dhahday carbinay taasaana keentay inaanu koobka qaadno waro taasay inay sahashay waa hagaag idan iyo kooxda maaliyadda waxa ka tag dhowr ciyaarto bilowgii horyaalka waxyaabihii sababay ciyaartooydaas inay ka tagaan ma la oran karaa ma dhaqaale xagga hoose kooxdaaba ma heshiiskoogu burburayba maxaa sahlay iyagoo ciyaartooydaas ahaayeen udub dhaxaadkii tartanka ku guuleystay walahi mahadsanid walaal kulley dhalinyartu waxay iska jeceshahay inay dynamic marba meel inuu qofku tago jecel yahay qasabna maaha qofku inuu ku waaran adigu ku bilaabay uma aanan arkin anagu in maxaan ku dhahdaayay dhib weyn uma aanan arkin laakiin waxa keenay waxay ahayd inaan jamaal oranay isagu dhoofay oo wadanka uu ka tagay laba inan oo kalena qolaa maxaan ku dhahdaayay naadiga dowladda hoose ku biireen labada inan oo kale kulley ummaduba dee kuwa ka warwada qabtaa siyaabaha ay ku tegeen naadiga oo kale shaqo iyo inay uga dhaqaalo badan tahay naadiga wasaaradda horumarinta maaliyadda ayay ku tegeen marka adaa ku haystee bindow kulley economic maxaan ku dhahdaayay growthkuna waa wax meesha imanaya marka kubad la ciyaarayo qofkuna dee interest buu leeyahy oo meel buu dee door bidi karaa sababahay ku door bidina kulley dhaqaalahaasuu ahaa walow anagu aanu ka xumaano oo aanay wanaagsaneyn in dee inanka lagu kaxeeyo dhaqaale ama siyaabo kale oo ay kubaddu tahay xirfaduna ay tahay qofka magaciisa iyo mansabkiisa inay ilaaliso siyaabahay ku tegeen saasay ahayd alxamdulillahi rabbil caalamiin markiiba positionska waanu soo buuxsanay iyaduna lalahaa hoos baad u dhaadhacsan horyaalkan soo socda annaga laftarkayguna inamadaa naga tegay ay halbowlan oo ahaayeen marka xaqiiqada laga hadlo udubdhaxaadkii ay ahaayeen oon islahayn runtii talow bal siday noqon doontaa haddana inamadii aan keenee dambe aad bay noo anfaceen inamadiina way noo bedeleen positionskoogii waqti xaadirkana kaalinta labaad baan ku jirnaa marka kulley siyaabahay ku tegeen saasun bay ahayd waa hagaag intaanan weli soomaalida baan ku dhex jiraa oo 2020 tartankii ka dhacay magaalada Hargeysa iidan tartankaas waxa tir waxyaabo noo sahlo waxa kamid ah waxaan aaminay jiilda ayar aan soo saarnay kulamo xiiso badan wad ciyaarayseen kulankii aad oran kartay kulankaas uu ku halis badnaa kulankee uu ahaa wallahi waa su'aal aad u wanaagsan kulankii ugu haliska badnaa wuxuu ahaa kulankii koowaad ee dowladda hoose oo runtii pressure badan saaray goolka nagaga horeeyay falilah alxamdu haddana ilaahay baa qoray inaanu 2 gool dambe ka daba keeno marka kulankii iigu adkaa ee Soonya 2020 kooxda dowladda hoose iyo macalinka weyn ilaahay baa weyne macalin dir dhabaan kornimi buu xawlo waliba kulankaas waxaan xasuustaa in difaac ku ciyaaraysa oo difaac kamid ah Xasan ka qaatay waa hagaag iidan
2020 Soonya uu soo dhamaaday waxaana noqotay macallinkii ugu wanaagsanaa tartanka ku guuleystay tartan kale xiisa badan baa laga bilaabay Soomaaliland tartankii gobolada saaxadda gobolada kaamad soo muuqan inkastoo laha gobollo ayuu macallinku leelin doonaa haddana laguma arag garoonka maxaas adigoo tartankii Soonya ku guuleystay oo waliba koox weyn ka qaaday koox waaweyn soo dhaafay maxaa sababi waayay inaad ka soo muuqan weydo tartanka gobolada walaalo su'aal wanaagsan kulli sababa keenaya inaad uga soo muuqan weydo anigu 5 sano baan ku jiray tababarnimada muddo sanad iyo bar ama 2 sano assistant baan ahaa 3 sano ama 2 sano iyo barna waxaan ahaa macallin kulli inaan janajarta inta dheer aan boodana anigana iimay wanaagsaneyn shakhsiyadeena uma wanaagsaneyn xirfadeedana uma wanaagsaneyn tababarnimada heer gobol inagu sidaynu aaminsanahay way ka sareysaa heerka eeda mar haday heer gobol ka sareyso heerkii eeda inaad markaaba boodo waxa ka wanaagsan inaad horta bal la jaan qaado goboladu sida ay u ciyaaraan systemkoodu sidoo yahay kala xulidooda kulli waa hawl weyn marka runtii iyadoon cidna aniga iiman gobol aanan door bidan inaan qabsado laakiin aniga ayaa jeclaystay inaanan yacnihii luubin garayn ama aanan raadin inaan tababaro heer gobol noqdo laakiin markaan waxoogaa ku jiro in expert noqdo waan jecelahay inaan tababaro heer gobol noqdo marka sababaha yacnihii suuro gelin waay waxa weeye isku meel arkin macallin weyn inaan ahay taasaana keentay inaan daawado ka noqdo waanad ku rajoonti laakiin aad noqoto insha Allah ta'ala waa hagaag iidan horyaalkan ku soo noqon doona horyaalkan waxaad kaga jirtaa kaalinta labaad ee xagga kala sareynta sidaad u aragtaa bilaabashada horyaalkan horta wallahi horyaalkan cidda ku amaanan aan markasta u mahad celinaa waxa weeye xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo ku dhiiratay inay horyaal yacnihii 3 horyaal oo kala hooseeya oo jaranjara oo la dhaadhacayo oo la soo kacayo dhigaan lamaynu qabsan in laba naadiyo A B ka ciyaari doonaan oo labada hornimo ciyaari doonaan horyaalka dambe waana runtii wax Misri balo aad u qaraad in laba naadiyo waligoodba eeda ku jiray oo markasta ee koobka eeda ciyaari inay B-da ka soo saftaan laba B-da joogana ay sare u soo kacaan laba C-da joogana ay sare u soo kacaan laba B-da joogana ay dhaadhacaan la isweydaarto waa runtii arrin yacnihii sharafteedii iyo karaamadeedii ammaanteeda ay leeyihiin xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloo sharaf iyo karaamo kule ammaana kule kooxaha heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad oo iyaguna aqbalay una dhiiraday inay ciyaaraan way markii hore phobia laga qabay dhowr jeer baa la isiri waa bal horta koobkan aynu ka dhigno mid tajribo ah ama mid tijaabo oo la isku tijaabinayo in bal horta lala qabsado liigi laakiin finally wala isla qaatay in laba dhaadhacaan labana soo kacaan aragti ahaan waxaan u arkaa guul u soo hoyatay dhalinyarta Soomaaliland caasimaduna runtii 10 kooxood baa weligeedba ka dhisnaan jiray in 10 kooxood la bedelaana wax sharaf u leh yacnihii xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano dhisanahay 30 sano liig lama qaban oo maxaan ku rahdayay cidna may dhaadhin cidna may soo kicin markii hore image foolxun ama sawir foolxun bay ku ahay marka waqti xaadirkan walaal waxyaalaha ugu waaweyn aan u arkaa waxa weeye inaynu horumar gaarnay TV-yadana laga daawanayo toddobaad walbana waxa ku cusub waxa weeyaan heblaaya xagga sare qabatay heblaaya kala hadana dhaadhacday kuwa kala tuuga soo galay kuwa kala tiriga galay yani xaladeedu leeyahay waa hagaag isagoo xaladiisa leh macallimiinta badan waxaan arki jirnay ama 5 sano imka aad ugaad macallimiinta dhalinyarada tartamada ciyaaraysa waxaan tartamo group stage laakiin horyaalku waa ka duwan yahay 18 kulan baad ciyaartay macallimiinta inta badan aad bay caqabad isku gahan jiray ciyaartooyada oo ciyaartooyadiisu aad u wanaagsantii inaanu group stage ka aanu ku tijaabin jirin idinka macallin ahaan ama adiga macallin ahaan maxay kaaga dhigantay wallahi waxay ka dhigan tahay inamadii marka hore guuxi jiray marka koob yar la dhigo oo 8 ciyaarood ama 6 ciyaarood oo 6 ciyaarood ba ana soo gaarin group ka hadho 3 ku hadho waxay yacnihii ka turjumaysaa inaanu helay chance aanu inamadii ku tusno in qof walba awoodiisii iyo kubaddii ku jirtay uu ku soo bandhiga garoonka dadna qof walba wuxuu isku arkayaa inuu ka qayb qaatay horyaalkii imika koobka la ciyaarayo hal ciyaartooy oo ka maqan garoonka soo galidiisa afeeg iyo liigaba aniga ma jiro dhowr iyo 20 ciyaartooy ku sadon ku dhawaad intuba way safteen intaba waan tijaabiyay mid walba jaaniskiisii iyo wixii Ilaahay qoray buu ka qaaday waana يعني كرنا قدي ولو مركي دم بحدنا أي نقطة عليصو
intiiba markaad wada tijaabiso marmar aad waayasaba markuu misis ku maqnaadaan markay dhaawac ku maqnaadaan marmar baa sodhan saabayaad gelisaa marka walaal waa waxyaalaha aadka fursad idinka inii saamaxday idinka iyo ciyaartooyda asbarataan ilaa xad waa hagaag iidan waxaanad sheegtay inaad horyaalku wax badan uu faa'iido u dhaliyay iidan intaa marka laga yimaado horyaalka imikaanta labaad baad ku jirtaa 7 kulan baa ku haray rajo intee lag baad ka qabtaa horyaalka inaad ku dhameysan doonto waa su'aal aad u wanaagsan runtii markaad awooddaada eegto kooxdaada ciyaartooyadaada kooxaha ku harsan horyaalka weli uga jigi labaadna waa lagu jiraa horyaalku aad buu isku bedelay waqti xaadirkana maaha inta sarena waxay hiigsanaysaa inay koobka qaado in dhaxana waxay hiigsanaysaa inay biida ka cararto sax waxyaalaha ugu darana waxa weeyaan markaad la ciyaarayso cid Serie B ka cararaysa laakiin waxaan u arkaa 10 kooxood bayna Serie B ka ordayaan 7 ciyaarood ugu dambeeya waayo 3-4 ciyaarood haddii laga badiyo koox xagga hore ku jirta waxa hubaala inay xagga hoose geliso marka rajadaan anigu ka qaba waxa weeye tiimkaygu waa tiim runtii aan ku kalsoonahay ka macalin ahaana aan runtii rajaynayo inaan liiga ku guuleysto ilaahay qadartiisa ka sokow sababahan saa u leeyahayna waxa weeye waa cadeymo oo waxa weeye ibika 4 dhibcood baan laga hayaa maalinkii dhaweeyay khamiista haddii aanu guuleysan lahayn anaga qaban lahayn hogaanka laakiin nasiib darro waana laga guuleystay kubadina waa barcday barmadow marka waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala ciyaaraha soo socda inaanu guntiga dhiisha iskaga dhigno oonu guuleysano isla markaana anagu hogaanka qabano isla markaana aanu noqono horyaalka caasimadda insha Allah tacaala waa hagaag inta iidan markan ka yimaado horyaalka iidan waxa tahay waxa inaad magacaas ku soo gaaray garan maayo macalinka xamaasadda la ayaa tahay marka gool dhali waliba kooxda daqiiqadaha ugu dambeeyay goolka ama barbar dhacay kana ama goolka goosha waxa keena xamaasadda inta leeg inaad iidaano macashqinta kubadda cagta agtooda ugu dabaaldegto ma ka dabeecad baa ma xamaasadda iyo goolka israacsan baa bal dadka ugu warbixi kulli dadka qaarba si way u arkaan qaar waxay u arkaan inaan xamaas yahay qaar waxay u arkaan inaan qof waalan oo iska ordayanahay laakiin waxa weeye finally isma ogaanaysid markaad guusha runtii aad gaadho farxad awgeed baad la dabaaldegaysaa mararka qaar aniga is xakameeyo oo is yiraahdo maanta badda ka baxo iska taagno hadduu 10 gool gashaan laakiin haddana aan ordayun baan sarka ama aan jilbaha ku ordaya marka walaal waxa weeye kulli waa shucuur igu jirta waa dareen igu jira markaan kubadda ciyaarayana aniga shakhsiyan ciyaartoy baan ahaan jiray markaan ciyaarayeen bariga hore ciyaari jirnay saasoo baan ahayo dabaaldegi jiray haddaan gool dhaliyo haddii aan cid kale oo aniga i ciyaarsa dhalisana sidaasoo baan ahaa marka waxa keenay dabaaldega kulli guul aad gaadhay wad farxasa farxadii marka farxadii man qarsan kari waayayo ama waan ordaa ma garan kaan saara marka iidan waxa jirta dhawaan inaad bartaada Facebook aad ku soo qortay xaaladda macalinimadu heerka taagan sagaashan ka daqiiqo taagan yahay xarinta yar Afrikaajka dadka qoraal baad ugu sheegtay bal xaaladda macalinimo oo 9 daqiiqo waa ka duwan ciyaartooyda macalinku isaga taageerayaasha inta badan idhaahdo waa isku dareen xagga ama guusha ama gool darada bal iyadoo muqaal ah bal xaaladda ay noogu waran maanta waayo walaal kulli xaaladdu way ka duwan tahay markaad stage-ka taagantahay lugtaadi kuma ciyaarisid oo adigu kuma aargoosanaysid kubaddi lugtaadi kuma difaacisid kubaddi lugtaadi kuma dhalinaysid halkan baad ka maamulaysaa hebel oo saa dhe baad leedahay 11 ka ciyaartay marna adiga way ku kafar gareynayaan quruxdaadii iyo macalinimadaadii bay ka turjumayaan marna waxay ka turjumayaan inaad macalin wanaagsan ahayn sababtu waxa weeye maalinka aad kubad qurux badan soo bandhigto oo si wanaagsan u ciyaarto 11 ka ciyaartay adigaba kulli media wada haysanaysa oo lagu amaanaya maalinka laga guuleystay kubaddu ka jeedana halkaas lagu jarjaraya oo oranaya waa maskax male waa sidan waa kii kale waa kan dadkuna kulli mar walba waxa xariifina oo Lucas dadka dibadda ka daawanaya markasta iyaga ka xariifsan macalinka iyo 11 ku jira marka xaaladda aad taagan tahay stage-ka aad wax tababarayso yacni beer second maskaxdaadu waxay u shaqeynaysaa si aan caadi ahayn sababtuna waxa weeye inaan baa kubad qaldaya isla markaa uu qaldaad soranaysaa kan fadhiya malaha dhaamay soo bedesha haddana kubadii buu wanaajinaya haddana waa deynaysa inaan kale oo weerara kubad qurux badan yacni oo si fiican loo dhalin lahaa cunaya ku kale fadhiya soranaysaa malaha kana ka wanaagsan ka soo bedesha kun ma gelisa marka waxa weeye waa dynamic sida badu muujada badu isku badbedelayso ayay 9 ka daqiiqo maskaxda isku badbedelaysa waxaan aaminsanahay in macallimiinta tababarka jooga de ku xarabaasanaya ma hay serious ka tahay uu ku cireysanayo 3-4 sano sababtu
waxa weeye maskaxdiisa aad u shaqaynaysa. maskaxdeedu waxay u shaqaysaa marka halkaa la jooga maahee 24 saacadood ka hor ciyaarta markaad leeday ayay sii shaqaynaysaa. sidaad ku ciyaari lahayd, isbedelkaas hadduu dhaco sidaad wax u bedeli lahayd, haddii maxaan ku raayay lagaa guulaysto sidaad u aqbali lahayd, haddaad guulaysato sidaad samayn lahayd. yacnihii hawl yacnihii yar maaha. marka kulley qof macallin uun baa dareemi kara. innagana waynu ka duwanay adduunkii. waxay macallimiinta halkan jooga lacag fara badan kuma qaataan, gawaari qurux badan kuma wataan, qasriya kuma jiraan, daryeel kale oo la siiyo oo dee caafimaad ama wax kale ma jiro. waxa weeye adiguunbaa uun tababar lama siiyo. waayo macallimiinta iminka gebigoogaba haddaad dhammaantood wareysato macallin tababar soo qaatay oo si international u soo qaatay ama hal training qaatay oo la siiyey ma jiro. waa waxaanu annagu aanu uun yacnihii aanu ijtihaad umar ku keennaa. taasaa keenaysa in macallinku fikir badan uu sameeyo. marka waxa weeye kolley dhalinyartan la tababarayaana dee academic lagama soo bilaabin. iminka haddii academic laga soo bilaabo 11 qof haddii aad academic ka soo bilaabeen oo age of 11 12 13 14 sidaa aad u soo wada joogi lahaydeen inanka etigiskiisii disciplinkiisii xirfadiisii kubadeed intaba waa dhisi lahayd. laakiin inanka wuxuu kuu imanayaayo aad tababaraysa isagoo dhowr 20 jira, ka ugu yar isagoo 18 jira 17 jira, waa inan marka horeba kubadii la soo qabsaday. deetana geedku markuu baxo sida yacnihii dee loo qalqaloociyaa way adagtay. geedka waxaa la dhisaa marka uu ama la qalqaloociyaa ama uu la barbaariyaa markuu curdinka yihi. marka macallimiinta badankooga kulley way igala sameeyeen dhibaatada ugu weyni waa taa. inanka waxaad u sheegaysaa garoonka marka la gelayo maalan 4 difaaca baad ku ciyaaraysa, 4 difaaca 3 weerar oo kaliya la joogaba. 3 weerarkii la joogaad marba mid ka odhanaysa adigu markuu kubadda ninku soo wato hor istaagu simbali laba taako u jirsaad ka odhanaysa intaan kubadda qof u qaado taadi way ka baxaysaa. 5 taako u jirsanaya goor allaali goor la dhaafi ma garanaysid. waa 10 jeer baad ugu celinaysaa. marka dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyin macallimiinta wada haysta. waxyaalaha difference-ka ee marka stage-ka aad joogtay marka dibadda ka joogtana walaal waa waxyaalahaas yacni kugu gadaaman oo la doonayo response inaad isla markaa ka bixiso. xaaladaas marka macallimiintu leedahay aad iyo aad waa hagaag. iidan inuu barnaamijka guntiga gabadhooda kaga jirnaa iidan kooxaha kubadda cagta kooxda taageerta horta wallaahi kulley dadku malaha aad uma jeclee wadanka England baan taageeray maalintii uu waati masiibadu yeeshay. صح laakiin kooxdeed ka taageerta marka Premier League wala Arsenal baan taageeray. Arsenal oo koox Arsenal oo dadka taageeraan aad bay dulqaad badan. waa hagaag macallimiinta iyad leedahay iidan tol waa macalinkaas falsafadiisa kulaad ku ciyaarta kubadda cagta. wallaahi waa su'aal wanaagsan walaal. falsafadan anigu aad ku jeclaa falsafada Zidane ayaan aad u jeclay walow saaxada tababarnimada laftarkiisu uu ka baxay laakiin anigu Zidane baan aad u jeclaa tababarnimadiisa. waa iidan haddii maanta lagu dhaado kooxda maaliyadda maca salaami oo kooxaha heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa ka dhisan kooxda ku biir oo macallin lagaaga dhigo kooxda jeclaan lahayd in macallin lagaaga dhigo. kulley kooxuhu waa fara badan yihiin. kooxa A iyo kooxa B ba way jiraan. صح kooxa B hadday iman lahaayeen صح laakiin eedan awood saar kulley eeda kooxdeeda koox ka wanaagsan oo aan maanta anigu aan socdo صح oo hadii lacag aan ka tago ma inaan ka fariisto kubadda صح mise inaan iyaga uun aan la sii qaato waqtigeyga maaliyaddu ma wala la qaadan lahaa. maaliyaddu waa kubadda cagta ku dhamaysan waa hagaag. iidan halkan macallimadu waa runtii waa waxa aad u sheegtay yaa kugu dhiirigeliya qofka kaliya aad runtii aad kala kaashataan macallimadu waayo oo fursad u heli kartay inaad halkan nagala wadaagto. walaal waa su'aal wanaagsan. kulley asxaabteeda qurba joog bay u badan yihiin. niman fara badan oo qurba jooga igu dhiirigeliya oo ugu horeeyo inaan walaalnahay kubaddana ku soo wada barbaarnay Yaxye Maxamed Xasan Dheelac leeyahay kubaddana ciyaari jiray. ninka odayga oo kale waa aad bi igu dhiirigeliya. niman kale oo maxaan ku rahday aanu asxaabnahay oo ka mid yahay nin Maxamed Faarax Badeed leeyahay oo ka shaqeeya hay'adda shaqaalaha isaguna tababarnimada waa dadka talooyinkii la soo wadaaga. saaxiib aad aanu saaxiibnahay ayaan la Maxamed Ciige oo taageero wasaaradda maaliyadda ah. asxaabna aanu nahay isaga laftarkiisuna waa dadka igu dhiirigeliyay inaan maxaan ku rahday aan sii wada tababarnimada. marka waa dad fara badan oo ma soo koobi karno walaal laakiin inahaasun baan ka xusayaa iyo macalinkaygii soo barbaariyay waqtigii yaraantii oo Mustafa Xasan Maxamed leeyahay isaga laftarkiisuna markasta maalinta aan guul daraystay maalintan guuleystaba isaga laftarkiisu ugu dhiirigeliyay tababarnimada. waxa kale oo jira dad ila soo xiriira oo aan macallimiin wada nahay oo ugu horeeyay Jamaal Cabdi Axmed iyo Cabdi Riyaad labada nin baan aad wada xiriirnaa macallimiinta
iyaga laftarkooguna runtii wixii tale iyo tusaalaha anagoo iska soo horjeedna haddana saaxiibtinimo ayaanu isku siinaa waa hagaag aad baad mahadsan tahay barnaamijka waxaa marti noogu ahaa macalinka wasaaradda horumarinta maaliyadda iidaan axmed iidaan oo barnaamijkan ku wareysanay bal waayihiisi tababarnimo iyo qodobo kale aad u xiiso badana barnaamijka waxaan la socodsiinay anigoo cabdisaaq bindhaa waxaan igaga tegayaa sida ayo salaamu allah